berisamaadkii dadka reer miyiga ayaa waxay necbanaan jireen cayilka mise baruurta waxayna socon jireen masaafo dheer balse waayadan dambe bulshada dhexdeeda waxaa ku soo badanaysa dhalinyarada jecel inay is cayiliyaan iyagoo isticmaalaya daawooyin afka qalaad lagu yiraahdo dexamethasone maalmahana dhalinyarada ugu magac dareen qarxis waxaa la kulmay qaar ka mid ah gabdhaha isticmaalaan waxaana ka wareystay sababta ku dhalisay inay daawadan xanuunada loogu talagalay isticmaalaan. waa mushtaaq ah waxaan ka hadli rabaa kaniinka la dhaho dexamethasone oo dadka ay u aqaanaan qarxiso kaniinkaas oo ah gabdhaha maxaa la dhahay hadda la isticmaalayo waxaana loo isticmaalay waan taageersanahay waxaana ku taageersanahay gabdhaha maxaa la dhahay marka caata wiilasha waxay ku dhahayaan qoftan fiir way daalantahay maxaa laftan kan maadaama kaniinka la isku sheego markii la cunay aniga hataa waan cunay cambaariya xusl baruur wax walba keenaa horaadka iyo gadaalka uu ka weyneyna maxaa la dhahay wiilashana ay dhahayaan marka aad buurato qof walba uu ku leeyahay qofta fiira waa nooshahay qofta fiirsay u nooshahay marka dhibaato inta la kala kulantay daawada ani kaniinka marka cunay dhibaato aan kala kulmay malaha maxaa la dhahay mar hore cuntada caadisa uma cunin jirin hadda laakiin waxa ay cad ina afkayga gacantay ay zayd isku dhawaadeen isbedel ma dareentay isbedel caatinimadii waan ka dareemay waan buurtay waan naxay oo wax badan qurux buu ka dhigaa kaniinka waana taageersanahay adiga maxaa kugu dhaliyay isticmaasho waxa igu dhaliyay maadaama ani mar hore caata aan ahay caata markaan ahay qof walba caatinimada maxaa saa u noqotay maxaa ku daaray dadba igu dhahin ani kaniin noocaas jira ama maqashay gabar cunto ayaan arkay mar hore waan ka shakiyay laakiin gabdhaha waxay dhahaan wuxuu qabaa effect uu qabaa maadaama effect uu qaba ay dhahaan kaniinan effect qabin malaha panadol naftirkiisa effect uu qabaa waaye ani waa cunay effectna kuma arkin caadi aan ahay wax jira aan ku arkana malaha sidoo kale dhalinyaro kale oo aan isticmaalin daawadani ayaa ila wadaageen aragtidooda qarxiska kaniinka la dhahayo gabdhaha dib badan ayuu keenaa gabdho badan oo walaalahay cuneen waan arkay marka hore cayil ayuu u keenayaa kadibna lugaha ayaa looga dhacayaa lugaha kama socon karaan haddana qaar jirka ayuu boogo u yeelaa way soo qayaan qaar maxaa la dhahay sambabuhu u dhacaa qaar wuxuu sameeyaa wax buurin uu ka dhigaa marka hore gabdhaha waxaa ku qasbay inay isticmaalaan daawadaha hadda waxaa la arkay qof ayaa cunaya waxaa la weydiini maxaa cuntaa baayo isticmaasho barihan waa cayishay anigana waxaa leeyahay kaniinkaaseta ayaan isticmaalay saas darteed ayaan cayilay magacayga waa Cabdiraxmaan waxaan ku magac dheeraa Dhayma maadaama gabdhaha ay jecel yihiin kaniinkan ay dhahaan qarxiso gabdhaha ay ka iska dhaadhiceen inay gabar caata wiilish ay rabin fikrad qaldan iska dhaadhiceen way naag caatay nin raw malahan nin walba naag oo ay jir leh ma sha Allah horta ragara kalmid waa rag waxa jiraan oo jirkeeda fiirinayaan iyo rag gabadha aan mustaqbalhan u fiirinayaan Dr. Hussein waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ku nool magaalada Wajeer waxaana ka wareystay daawada si ay gabdhaha u isticmaalaan inay ku cayilaan xanuunada loo isticmaalo iyo waliba saameynteeda haddii sheego horta dexamethasone waa daawo isbitaalada laga helo oo dadka lagu daaweeyo waxyaalaha lagu daaweeyo waxaa ka mid ah sida allergy cream la marsadaa jira oo markaan sidii creamka loo marsadaa creamka marka adigoo jirooneen haddaad marsatid wuxuu keenayaa inuu maaragtay wejiga aad ka buurato ama wax inflammation la dhaho markaan dad waxay ugu qasbi drug inaad maaragtay dependent ku noqoto ama marka si isticmaasho mar haddaad joojisana ma garanaysaa jirku waa didilaacaya waa guduudanaya nooc kala noqonaya midaad waa midda creamka kaniina jira markaan la laqo oo markaan asagana lisku ma garanaysaa inta badan loo isticmaalo dadka cayilka raadiyo kaniinkaas markaa muxuu yahay kaniinkaas waa kaniin yar inta badan waa la laqaa markaa la laqdo appetite ku furaya number 1 maxaa laga yaabaa in calool xanuun keeno some of the side effects marka waxyaalaha dizziness la dhahaa ku jiro headache ku qabaa maftadaad markuu appetite furo maxaa dhacay qofka inuu cunto badan cuno cunto markaa cuntona what's called weight increase will set in that is magaranaysaa miisaankaada ku darsamaya markaan kaniinkaas
ama creamka labadaba inta badan dumarka ay isticmaalaan waxaan leeyahay dayba jiri ku geynin maanta oo xanuunsaneen oo sariir jiifin ama dhakhtar ku qorin in la iska yareeyo maxamed shaafic anko Alpha TV magaalada Wajir